Markaa su'aal baan ka arkaa raba inaan ka jawaabo. Markaa su'aal baan ka arkaa raba inaan ka jawaabo. كوري صح كسعدين سؤال سوء Okay, كثير dee waa mahadsantahay horta barnaamijkan xili loo baahnaayo iyo waqti muhiim ah iyo mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa yacni qof oo maaragtay abti ah u ah oo kale oo maaragtay oo aanan qaangaar ahayn oo aanan shaqaynin ma ku buuxsan karaa laakiin waqtiyo ka horeeya oo kale kumaanan buuxsan jirin. Like waxaa waaye qofka waa 14 jir waqtiga ka horeeya kumaanan buuxsan jirin laakiin hadda camal ma ku buuxsan karaa isagoo 14 jir wixii ka horeeyana kumaanan buuxsan jirin haddii aan support gareeyo yacni qofkan waa arday. Okay, so waan hormariyey laakiin hadda waan ku celinayaa. Qofka aad ku buuxsanayso 4 shardi baa laga rabaa. Horta xiriirka leediin waad sheegtay abti baad u tahay. Da'diisana 14 jir waa sheegtay waad ka soo baxday shuruudda labaad. Labada shuruudood ugu muhiimsan waxaa waaye markaa. Boqolkiiba 50 noloshiisa ma taageertay oo ma support garaysay sanadkii taxiga matalan 2025 oo kale. Boqolkiiba 50 ma kafaalo qaaday wixii qarashkiisa ma bixinaysa. Waan caawiyaado inaad cunto u gado inaad movie geyso inaad bag gudanka kaliya ma boqolkiiba 50 baa laga rabaa. Shuruudda ugu weyn waxaa waaye 2025kii ugu yaraan 6 bilood dii uu ka income badan yahay cunugana 6 bilood ugu badnaan uu la deganaa waa lagu qabsanayaa laakiin shuruudu waxa way hadduu kula degan yahay adiga oo adigu cunuga haysid waalidka inkamkiisu meesha uu ka baxaya marka laba jawaabood aad ka baxday wuu yar yahay qaraabatiin oo abti baad u tahay labada su'aalood kale hadday haa tahay walkiiba 50 lifekiisa inaad support garayso ugu yaraan 6 bilood inaad isku address tahaydeen yacni address la og yahay oo liiska uu kugu qoran yahay labada shuruud faamilada qaarkood waxaa dhacda stateku inuu uga lacag badnaado federaalkii weligeedna mayna dhici jirin sanadkii hore markii laga reebo waxaana keenaya ilmahan child credit-ka 1700 iyo 50 la siinayo. ومحسنتي brother thank you You're welcome. السلام عليكم إدريس سلام كسع ودمان واسلام brother شريف خاصة مركا نيو سؤال waxaan rabaa inaan weydiiyo qof 1099 ahaa oo weligiis waxba aan ka khaldamin laakiin December 14keedii ama 16keedii warqad IRS u soo dirtay IRSna ay leedahay waxaa la dhihi jiray waxaan kaaga baahanahay inaad soo cadayso waxa meesha ku soo qoran waxaa ka mid ah inaad business leedahay inaad LLC leedahay inaad company leedahay inaad house aad leedahay marka waxaasoo dhan ay meesha ku soo qoreen hal wax bas aan ka leenahay oo gurigaas kaliya ma garat marka waxaan kale anaga waxaan shaqo ku leenahay ma ahan LLC ma lihi laakiin 1099 waa waxa anaga marka arrintaas aad noola weynaatay bal maxaa experience u leedahay nooga tali kartaa sanadkee waa horta sanadka walaal lagu soo diray tax return-ka xilliga sanadkii hore ma December 16 2025 last year ayana waraaqda xilligaas lagu soo diray waraaqda lagu soo diray ma taxiga sanadka la xareeyay ma 2024 waa kii hore sanadkii ka horeeyay waa sax sanadka ka horeeyay ha okay because hadda waxaa xareynaa 2025 ma xareynaa la soo صح 2024 waa waxa noo soo direen ilaa soo caday fiirisaa marka fiirisaa soo caday waxa lagu leeyahay waa expenses kii waay qofkii ku xareeyay file buu ku siiyay waxaad fiirisaa schedule C-gaaga wuxuu claim gareeyay oo expenses kaaga dhigay fiiri dostana baad ula tagtay uu ku xareeyay expenses buu geliyay sometimes dadka qaarkii xareynaya expenses ay gelinayaan
iyagoon dadka u sheegin ama qofkii uuna dhin waxa ii geli si lacag ay ugu helaan iyaguna ay ugu xareeyaan bay sameeyaan marka waxaa waajib oo idinku mataqaanaa munaasaba applicationkaaga ama waraaqahaaga lagu siiyey dib u raac hadda marka adigoo kale schedule C-gaaga fiiri wixii lagu geliyey ee IRS ku weydiinayso si aad u cadayso horta kharashkii aad gashatay meesha in kharashkii aad ninka u sheegtay kuu buuxiyo yahay iyo wax dheeraada inuu geliyo oodan war ka haynin iska hubi insha allahu tacaala هاي ما يسمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شريف. أنا سؤال بنقبا لبا عنق بعيد شوقو اللحية طبعا مركا income كودو ميو effect جرينا سيد غريو كله يو ما إن لحرية بام سوا إن ليس كده I'm sorry يقرأ له note baan akhrinayay marka su'aashaada igu celaado raale laba cunugoo part time shaqeeyo oo high school oo 16 iyo 17 part time bay shaqeeyeen marka miyay income koodu miyaa la xareynayaa mise adigu dhowr kun weeye 5 kun guriyana miyaa affect gareynaya miyay kaaga baahan yihiin income marka lagu raakeen oo kale okay guryaha I don't know guryaha maxaa ka wadaa ama low income iyo section 8 baad ka wadaa dabcan yes way ku weydiinayaan income-kooda keen marka jeegooda ku filan laakiin 5,000 buu sameeyey wiilkaagii waxaa laga yaabaa 5,000 oo dollar uu sameeyey in 400 500 600 700 oo dollar federaalka iyo state-ka marka la sugayay ay ka gooyeen marka waa fursad weeye isagana credit bay u noqonaysaa intii laga gooyo oo dhanna way u soo noqonaysaa unuga marka u xareebaan kugula talinayaa anu saasaan sameeyaa qofka markuu ilmaha wato 6,000 5,000 10,000 12,000 u wato waxna laga gooyey lacagta waan ugu soo celinaa insha allahu tacaala marka separate maaha kaaga income-kaaga aad ku daraysaa nope السلام عليكم no income-ka la isku darayo aan idin sheega mar income-ka la isku darayo waa kaliya labada ruuxa isqaba income kale oo la isku dari kara ma jiro cunugaaga waad claim garaynaysaa as a dependent baad u claim garaynaysaa income-kiisana gooni baad u xaraynaysaa waad mahadsantahay si fiican baan okay su'aal halkan aan rabay cabaar taale qof soo qorayo I am a single I make 60k with 2 children the fairest one 1,900 is that fair for me please reply Idris so it's kind of like I need to know 60,000 ka aad samaysay canshuur miyaa lagaa gooyey haddii canshuur lagaa gooyey dabcan aan sharaxo 60,000 ka aad samaysay dabcan cunug baad leedahay head of household baad noqonaysaa head of household markaad noqoto 60,000 kun aad samaysay waxaa laga goynayaa 23,625 intaa markii laga gooyo baaqiga soo hadha bracketka aad gelaysaa wuxuu noqonayaa hold on 1 second bracketka aad gelaysaa qofkaas waa head of household wuxuu noqonayaa 12% marka income-ka W2-gaaga aad haysato haddii laga gooyey 12% iyo ka badan ilmaha credit-kooda in lagu siiyo waayo inaad lacag geliso maaha laakiin haddaad 6k aad samayso waxbana aan lagaa goynin yes tax liability-gaagu waa lagaa rabaa inaad bixiso insha allahu tacaala laakiin I cannot certainly say intaasaad bixinaysaa because W2-gaaga ma arko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والله شريف السؤال بندوني هنا كويديو كصابسن مينيسوتا child credit card ما واحد لو يجي يا income mise waa qof walba ma yarba walba xaq buu leeyahay qof kasta xaq buu leeyahay maxaa tiri 12,000 may waxaan sheegaya credit kan iminka loo soo daayay 250 sax okay horta number 1 inaad xariibsato oo credit card ku hesho
كنت ضواب قولي وكونتونكا لوما إيجي أنا هوري كيشن قالي سؤال شوال إنه ويدي وكان جوابني كنت ضواب قولي وكونتونكا من السوطة دقنت هاي ويران لحدي بلاد ودن بيسي كنت ضواب قولي وكونتونكا واد كلام قرانيسا أوكي إنكم كاغو هدو بداي هاي إنكم كاغو هدو بداي هاي أنا كنت رأيت إنكم كنت ضواب قولي وكونتونكا وحاي اسكالي ونوغا تضبية تونجير إيا كيا إنكم كاغو هدو بداي هاي مرك oo taxi state ku yeesho taxina aan laga gooyin kunta doobo wali konto kaagi baa laga daba tagaya wixii taxi lagu leeyahay baa laga qaadanaya baaqigana waa lagu siinaya insha Allah saas way waan fahmay waad mahadsantahay walaal nidaam wada Shukriya Shariifow dad wada nool